السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يال إن بدن أو إذن كمدا وحا كور هيسان إن شالي عن إذن سو قد بني ورل حريري إن دادك قار المقالات مقدشو كنول أي دريمين على الحنون ودران oo la garanaynin ilaa ay hadda meesha uu ka yimid laakiin dad ayaa u arkay wax lagu maadeysto oo lagu qoslo oo baqarkood warka aan soo tabinay nagu eedeynaya iyaga oo muujinaya dhahaya waxa ka hadlaysan waxaan jirin hadaba waxa qadka si toos ugu jira Mahad Shariif Jilacow oo kamid ah wariyaasha Soomaaliyeed sidoo kale kamid ah bulshooyinka Soomaaliyeed ee Muqdisho ku nool oo indhihiisa ku arkay isaguna oo hadda la ildaran yahay oo hadda bukaan leeyahay oo wax yar ka hor isbitaalka soo baxay Mahad bal waxa sharaxaad naga siisaa calaamadaha iyo waxa isku aragtay wala santa manasar ona kaaga madalinayaa in bulshada sida wanaagsan oo la wadaagaysid hadba xaaladda soo korta horta quraanka soo dhigtay ali xalay arkay markaan arkay kadib war akhriyay markaan wala ka bariyay in islaamiinta dhamaantood uu ka hayo alxamdulillah intaas wax la gaaray adiga 8 saac oo habeenimo ilaa iyo 7 saac san jeclahay ana xilli hore xogaad ka jirtay ما دحن يا خبط حوجا دحن يا خبطي عندي دناينا حوجا والد كعيو أما إن قبلها مولش إلا سنة كعيو وعاش لو حوا دحني والله سيك عيني هي دحن تسوح ذي لا يحل يسعد مركي الجاري يسعد سواد وكذي أما نصوب بحوا بنانك مركان بنانك ماذا عمر السولية جلي إن على مديها سوق قريسة سكواركي دي أهان لهيد محل دعا على المجير إن الصحراء عند بدن تذكر يرادان إن شوان كوكالي مطاقان كلي جوكسي لهين وكالي صباح دي سيب قوصر أو جفتك نيالي وحياوة سقاطي وحانف له الحالة دان آدمو ويني أسيت هان وحان قاتك كنيال سكير أنا مركز يدي لو فين حوجا يريسناي كنيات كان سكرات مركز كنيات شقاتي سجل جوثا وجيفنا وهي كده وجيفنا وكا لبلبو حداف الحمد لله لبلبو حداف نوجرتي ما تسكين كجوكس ماهين إيو شو كذا لأن هذا حافظ مركز عاوة إيه مالين حوجا حتى وايد دريمين وأركن أي لفتركودا مركز لا إيو كويت كونك برقنمو ما شنصا حالة سيب احنا إنايا مر حالي قدري فلانبو أو فرميشيان تغنى فلانبو اللي سو قفتي والي قدري مر كيف البداس اللي يقدري أنا لم إيد أو هذا كان أمر إيد على شو اللي هيا شو أنت مجوجينوي وإنه واير استساعد الشيء بزدتكو يرسنا ينمو أنا إنه واير استي الحمد لله مر كدب والدك وحاواي سالي جيين وأنا أمة علنا تلك وحواسيل ونسون إلى تعالي يومرك على مدى وشاقب إسلامرك حتى وحواي هوري وفر الجلين وإلا يشم فلان بيسورين شم فلان بنو عدرين وكرتا ديدين إنه شم فلان بوكرا نوع يعني لو فلان بو ووين يسدح يرير سيما آخرين بمير ملهين مركي والدك إن أنا عمر كان الله مير في عني يشي وفلان بوين كودا مادين عليه شيء markaas la yahadan waxa way saxarada waan wada dawooyin way soo qoreen isbitaalka si fiican ka kaliyaashiisa dhaqaatiirtiisa meesha baxnaaniyeen oo hadda intaan Allah la kasoo kooyaga oo sabay waxa way u danaan waxay ahayd markaan qoraalkaaga xal akhrinay saaki isku ark waa markii saxada ka dhashay soo siyareystaba markaan isbitaalka tagay marka kaliya runta ogaado dad kale isbitaalka ku aragtay Mahad hal daqiiqo waxaan dhamay markii isbitaalka soo galiyay hal daqiiqo ma dhamay sayid li jiifiyay afar qof la keenay afar qof waxaan hal daqiiqo dhamay afar qof la keenay wali boqolkan ku jiro qoray kala balkawra maanta xaaladan adiga hadda aad la kulantay la kulmay xaaladan anigu ku jiro sumaayeen hawsha laga hayay marka siyaabo kala duwan loo kala qaaday inay gas tahay inay bahal tahay Soomaalidu way isticmaalaan inta badan waxa la leeyahay waa shuban oo alashan gas keenay ama bahal keenay midkood doona ha noqdo bahalka iyo gaska waa cudur waxa way bini aadamkuna marka inta badan ay la kulmaan
alxamdulilah marka xaaladii aad ku arkay adana dartan u fiicanahay waxaa sheegay waa dembi alxamdulilah mahad marka laakiin ilaa hadda gosgosaan u jiifanaa saabtii shaqada waa la wadaagay maasha allah way imaadeen ii duceeyeen dhalinyarada xaafadda waa maalcelina way imaadeen ii duceeyeen qur-aan ay saareen marka munasar Facebook iyo qoraalka ayaan soo qaaday oo soo dhigay anigu waan awoodo inaan qarso oo iska aamuso laakiin tii anigu dhacdo kala diidnaan dadka ku dhacdo oo saa sheegaysid bal la yareystay anigu waa yareystay ilaa iyo 5 saac waa dareemi kartaa xalay 10 saac ama 7 saac in la qabtay dhaxan ku bilaabatay ilaa iyo 5 saac in wax yareysanayaan waan awoodo inaan dhakhtar tago saaxiibo badan oo ku leeyahay goobaha caafimaadka laakiin waxyaabaha dadka aaminsan yihiin hadda aaminsan inuu yar yahay waxaa la yiraahdaa kiniini u baahna diilo cunaan kiniini gaas cuno xaaladda ay fiicnaan karto kiniini inta badan dadka dhahaan rafadiinka kala mid tirishadiinka kala diilo xaaladda fiicnaan karto mahad marka hadaan ku weydiiyey marka qofka hadda aan astaamahaas isku arkin haddii uu dhaho sawir guud si waxyaabuhu dareemayo maxaa ugu weyn ma caloosha oo xoog looga qabto kaliya mase waxaa la socda waxyaabo kale oo khatar ah oo qofka haddii kaliista meel uu joogo ama uu cid u ciidameysa lahayn oo halis ku gali karo sana ugu dambeysaan ku bilaaba wax walba iska qoraan aniga walaalkay iyo gabdhaha la dhashay iyo gabdhahan adeer u ahay iyo kuwan afta u ahay iyo hooyo iyo aabbo ay joogeen xaaladii saahan rabbi waxaan sheegi karo masii sawir karo maahan alxamdulilah anoo liili joogay xaalad waxaan ku sugnaa aad u adag laakiin waa kasoo kabsada markii dambe alxamdulilah sida kale calool majiirkaas waa mid soconayo oo leeyaxad lasii dareemayo waxyaabaha inta badan sida la yiraahdo mataga oo kale maaragtay iyo shubanka markay isku toosaan isku sii aadaan qofka xaalad halis oo gala yabay waa jiisanaa waxay ahayd in isbitaalka markii laga qaaday maxaa la dhahaa pressurkeyga la cabiray qof aniga marka waxaan iska ahay nin iska sportiyaan ahay nin oon dhiilanahay nin alamita la dejiyo macaan lahayd nin waxaa waaye sports nooci kala duwan ku jiranahay iska lugeeyo marka waxyaabaha inta badan waxaan isticmaalaya sidoo kale oo maxaa la yidhahda malaagiiska aan lahayd gcska oo kale dhiaan lahayd aduu qof waxaan iska ahay aad waxyaaba brotiinada dhankooda uba badan anuu xaaladaas ugu badan oo hbgaygana 14 noqdo hb markii la baaray hb daktarka mana sheegay ninkan waxaa la yiri bal waxaa waaye xoogaha indhaha madoobaaday mar suuli aaday waa waxa waaye waa la soo waday sayidka la keenay xaaladda markii loo sheegay daktarkii hb iyo baaritaan guud sii geliyay markaan sii gala baaritaanka guudna waxaa soo baxday hbgayga 14 wax xanuunkan dhakhtarka muxuu kuugu sheegay marka laba nooc loo kala qaaday midna waa bahal midna waa gaas midna waa majiir guud ka jiro laakiin dadka intooda badan waxaa la yiraahdaa gaas labada way iska hayeen infection kale caloosha ku dhaca iska jiro inaan wareeray marka inaan xoogaha indhaha madoobaadeen oo kale oo dadka indhaha madoobaada si kale inuu fahmo macquul laakiin xoogaha wax arkaysa istagaadii marka dhakhtarka la hadlana hb iyo ninkan 14 gaaray hbgiisi 14 waliba wax la sii jireen oo balasi ah 14 ka soo gaaray maxaa keenay marka inaa xoogaa indhaha madoobaada wax kale laguma tilmaamin wuxuu yiri waa shubanka iyo matag qofka si walba uu xoogan yahay si walba hb fiican u haysto waxa waaye hadduu mar matag iyo shuban isku baystaan dhulku dhaca marka ayay 42 ilaa 46 noqday waa dareemi kartaa xaaladda adag iska ahayd alxamdulilah hadda marka isbitaalka waqti dambaan kasoo baxay oo ilaa iyo maxaan dhahaa 12 saac ilaa 12 ka soo baxay marka xaafadii ma daawooyin ay soo qoreen daawooyinka sida qaadanayaa hadda xitaa xanuuna kaa muuqda in badana kaa socdo waa dareemi karaa walaalkay way jirtaa ilaa hadda alxamdulilah laakiin sida hore boqol waa kasii fiicanahay marka dadkan aan waxaan aaminsanayn in magaalada ku jiro xanuunkan calool xanuunka ah ee mataga iyo shubanka isla socda leh maxaa hadda ugu soo gabagabayna ugu baaqi lahayd walaalkay ugu baaqi horta wax inaan la yareysan wax walba la soo gudbiyo inaan la yareysan markii qolada xasay gudbiso noqdaan in dad maxaa la xilal hayay iyo dad maxaa la bulshada ku dhex jiro iyo dhalinyaro bulshada
jecel inay wixii wanaag iyo horumar la wadaagaan oo caafimaadkooda ku takhalusa iyo wax walbaba waxaa aboon sida taa loo qaato ani ilaahay wuxuu xalay igu aadiyay qoraalkaas oo dhigtay akhristo xaaladaas xaalad lamid ah dad haystaan waa arkay dhiigaan saaray markii isbitaalka laga soo tago oo dad aqaano aniga si qaas igu weyn in waxa la yiraahdaa bogi laga qabtay oo kale jareys iyo wadeen oo kale marka ayagana dartan goob caafimaad ku jiraan ilaahay ugu baryayno hawaa caafimaad tamasiyo wallahi billahi inaan been sheegay wax la sheegayo waa wax runa waana wax jiro يا الله يرسل إن شاء الله تعالى بكذا هذا ما صنت ما هذا ما صنت